tanina waa maansada dardaaran waa maanso wacyigelin oo ku socota dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta oo adduunka ka jooga. Maansadan waxay soo baxday 22 December sanadkii 2019 waxayna tiri: waxaan muddo badan dadaayay, waxaan dibnihiyo dhawaaqa dibadda ka ilaalinayay, waxaan ku daboolay uurka markaan arkay daayac muuqda, waxaan damcay inaan ka qaado daboolkii daaha saaran. haddaan dulucda hadalkayga u daadega degaldhigiisa, dadkeennii waxa dilooday diintii dhaqankii ka duufshay, dadnimadii waxa dilaalay damiirka yurub jeeda. waxaa daayartii haleeyay asaagoo dacal ka dhaafshay, ka duway marinkii dantooda maradan iyadoo dilaacsan, iyadoo dacallada ka jeexan dawaarkana lagu sargooyey, intay dad miciishad mooday inooga dalbeen shisheeye danaysta ku nool Maraykan, intaynu xarraga ka doonnay doobkeenni qurux isbeeday. waxaan dugsi kuu ahaanin dabayshana kaa daryeelin, jidhkaagana daalaacaadda dadkoo idil daawanaayo dubaaqooda iyo jidhkooda dabree ku tigdigay surwaalka. ragow dulucdaydan dhuuxa dawada dhaqankeennu maaha, dilaaci dharkaaga maaha, dalooli surwaalka maaha, madaxa diigu xiiro maaha, diloo dadka baadha maaha, dalkaaga nacdaana maaha, shisheeye ka doorbid maaha, xorriyad adigoo dabaasha damaanad ku doorsa maaha, jidhkaagana doori maaha, waxaansina kuu danaynin dantaada ka doora maaha. hablahan dalladiiyo xijaabka duntii nebigeennu sheegay inay ku dadaan jidhkooda, intay diideen ka doortay waxaan lagu dhigin dastuurka diinteennuna aanay sheegin. hablow dalladiiyo xijaabku dadmada dhowrsoonidiinnu waa dahab iyo shay dushaada xariirku ah lagu dahaadhay, waa dama laga galo cadceedda, dayaca ka dulqaad naftaadoo daleen ha ka dhigin jidhkaaga. dadyow diintiiyo xishoodku xayaha iyo dabacsanaantu diinteennu siday farayso, rasuulkuna uu dardaarmay jannada waa dariiqyadeeda. dadyow digrigiiyo qur-aanka ducada alle iyo salaadda shayddaankaa lagu dabraaye, waa dayrkaa xige iblayse quluubta ku beera diinto damiirka bulshay la kaasho.